beesha ciise oo dowladda Jabuuti si qarsoodiya uga heshay laba ka mid ah hubka ugu casrisan uguna halista badan ee dagaal lagu galo. haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa kulan qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada Carta ee dalka Jabuuti una dhaxeeyay sargaal sare oo ka tirsan militariga Jabuuti iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha ciise. waxaan kaloo kuu soo gudbin doonaa deegaanka Habaas oo caawa laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah. ciidanka beesha ciise oo halkaasi ka samaystay fariisin rasmi ah. Somaliland oo xoog iyo xeeradba ku bixinaysa sidii ciidanka beesha ciise dib loogu celin lahaa dawlad deegaanka Soomaalida. haddaba maxaa caawa ka socda Habaas? maxaysan yihiin kulamada halkaasi la filaya inay ka dhacaan oo saraakiil ciidan dhex mari doona? iyana macluumaad dhammaystiran ayaan ku siin doonaa. waxaan kaloo kuu soo gudbin doonaa ciidanka waqooyi bari oo sheegay inay fashiliyeen weerar la rabay in lagu qaado saldhig ay ku leeyihiin aagga gobolka Togdheer gaar ahaan Buuqdharkayn. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordhaa ayaan saaxiibayaal idiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kugu horeysay ku soo biir waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee aragtidaada qaybta commentiga noogu reeb muuqaalkan aad daawanaysidna like saar. qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa beesha faca weyn ee ciise ayaan ogaanay baaritaan aan samaynay kadib in ay Jabuuti ka soo gateen hub qaarna iyaga la siiyey. haddaba hubkan wuxuu iskugu jiro waxa uu ka goyn karo fagaarayaasha dagaalka. beesha Samaroon oo walaac arrinkan ka muujisay. dowladda Jabuuti oo si rasmi ah ula safatay beesha ciise. laba sargaal oo ka tirsan militariga Jabuuti oo tagay magaalada Saylac. kulan ka dhacay magaalada Carta ee dalka Jabuuti iyo waxaan kuu soo gudbin doonaa ciidankii ka ambabaxay magaalada Diridhabe ee dawlad deegaanka Soomaalida oo caawa toos u galay deegaanka Habaas. dhammaan su'aalahaas iyo kuwa kale oo soo raaca ayaan kuu faahfaahin doonaa ee si degan u daawo muuqaalkan. waxaad ogtihiin inuu jiro khilaaf u dhaxeeya beesha ciise iyo beesha Gudubirsi. khilaafku wuxuu ka dhashay markii beesha Gudubirsi ay diiday in la soo bandhigo xeerka buugga ciise. mudaharaadna ay ka dhaceen magaalada Boorame. 16 qof ay ku dhinteen, 17 kalena ay ku dhaawacmeen, guryo la burburiyey, dad rayidana la beegsaday. xaaladdu iyadoo halka ay marayso ayaa Cabdiraxmaan Cirra sheekada soo farageliyay oo wuxuu sheegay in xeerka buugga ciise la kansalay ama la hakiyey. ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa ayaa soo hadlay oo sheegay in beesha Samaroon ay dagaal la geli doonaan. wax yar kadibna waxaa hadlay suldaanka guud ee beesha ciise oo yiri ugaas waan ka ajibnay dagaalkaaga, tan oo ka dhigan inuu si rasmi ah u bilowday dagaal foolka fool ah oo dhex mari kara beelaha ciise iyo sidoo kale Samaroon. inta ila fahma wixii inta ka dambeeyay haddaba waxaa soo ifbaxay in dowladda Jabuuti iyo dawlad deegaanka Soomaalidu ay si hagar la'aaneed ahayn ay u taageerayaan beesha ciise. 27 saac la soo dhaafay gaadiid dagaal hub aad u fara badan ayaa waxay galeen magaalooyinka Saylac, Ceelgaal, Habaas, Bolol. dhammaan deegaanada aan soo carabaabay waxaa gacanta ku haya ciidanka beesha ciise. haddaba caawa u dambeysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa amar waxa uu siiyey taliyaha militariga Jabuuti Sakariye. kulanka waxaa la sheegay in lagu amray taliyaha militariga inuu si xoog leh u taageero beesha ciise si ay xeerka buugga ciise ugu soo bandhigaan magaalada Saylac. xaaladdu halka markay marayso ayaa waxaan ogaanay qoriga la yiraahdo M30 iyo qoriga la yiraahdo AD5 iyo qoriga la yiraahdo Chantachi kuwe in dhammaan laga soo bixiyay xerooyinka militariga dalka Jabuuti toosna loo geyn doono magaalada la yiraahdo Saylac. hubkan aan soo sheegay intiina taqaan hubkan waa hub fagaarayaasha dagaalka wax weyn ka goyn kara. waa hub haddii loo baahdo maanta cir iyo dhul wax ka duqeyn kara. waa hub aan la yareysan karin. waa hub inaba aan caadi ahayn. dadka la socda arrimaha hubabka iyo ciidamada waxay tilmaameen boqorka dagaalka inuu ku jiro oo ah AD5. sidoo kale boqorka dagaalka isna waxaa la yiraahdaa qoriga la yiraahdo M30 oo dhuumo fara badan leh kaasi oo la aaminsan yahay in uu wax weyn u goyn karo beesha la yiraahdo ciise haddii ay dagaalka toos u soo galaan. dhowrkii saac la soo dhaafay iyadoo xaaladdu halka ay joogto
ayaa waxaan ogaanay inay jiraan in dowladda Jabuuti gaar ahaan Ismaaciil Cumar Geelle uu taliyaha militariga Jabuuti ku yiri waa in aad hub siisaa waliba waxay u baahan yihiin beesha ciise oo aad hubkaasi ku wareejisaa gacan amni ah taas oo la sheegay in ugu dambeyn ay dabcan si rasmi ah u dhaqan gashay hubkaasna dabcan si toos loogu wareejiyay dowladda wadanka aan dhahay beesha ciise iyadoo Jabuuti la soo marinayo muuqaalkan kii ka horeeyay oo dabcan saacada yaala dib u daawo waxaan idin sheegay in beesha ciise hubkii Jabuuti ay ka heshay uu caawa uu galay maanta qaarna ay hadda galayaan haddana xilligan idila hadlayo meelo ka mid ah gobolka Awdal haddaba beesha Samaroon iyadoo ilaa hadda ma jiro wax taageero hub ah oo ay heshay hadday noqoto Somaliland iyo hadday noqoto meel kaleba dad badan oo arrimahan la socda ayaa waxay leeyihiin tani waa dharbaaxa inaba aan caadi ahayn oo ku dhacday dowladda Somaliland oo ku aadan inay ku fashilmeen in ay bal wuxuun si uun yeelaan oo ay bal xaajada uun xataa hoos u dhigaan tanna waxaa loo arkaa dabcan fashil iyo inay arrintu faraha ka baxday saaxiibayaal wixii ku soo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe markana qodobadeena kale deegaan la yiraahdo Habaas oo maalmihii ugu dambeeyay xiisado ay ka taagnaayeen xiisadahaas oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Samaroon ayaa caawa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaq xoog leh uu ka jiro beesha Ciise ayaa saldhigii ugu weynaa inta la xasuusto gobolka Awdal gaar ahaan xuduudda waxay ka samaysatay Habaas khubaro badan oo la socota arrimahan waxay leeyihiin tani wax la sahlan kara maahan beesha Ciise inay saldhig ka samaysato xadka oo ay markay rabto duulaan ku soo qaado ciidanka Somaliland ama markay rabto ay duulaan ku soo qaado beesha la yiraahdo Samaroon wax la sahlan kara maahan Cabdiraxmaan Cirana waa inuu hurdada ka kaco oo uu si degdeg ah u cambaareeyo ficilada Jabuuti ay ku habeenayso ama ay hubka ugu dhiibayso beesha ay odwadaaga yihiin la yiraahdo Ciise khubaro badan oo arrimaha la socota ayaa waxay leeyihiin dhowrkii saac ee la soo dhaafay xaaladdu faraha ayay ka baxday marka la eego siday wax isku bedelayaan sababtoo ah waxaad arki kartaa in talaabo hore loo qaaday ay tahay in ciisuhu ay Jabuuti ka heleen hub halka Samaroon kale leeyahay xaaladdu aad bay ugu xun tahay oo waxay leeyihiin waa in si degdeg ah xaaladayada loo soo farageliyo haddii xaaladan aan si degdeg wax looga qaban dad badan waxay aaminsan yihiin in ay sheekadu faraha ka bixi karto oo waliba la arki doono isku dhacyo waaweyn oo ciidamada ah oo dhinacyada dhex maray iyo in Jabuuti ay toos ugu lug yeelato ficilada aan la mahdin ee hadda ka imaanaya darafyo kale oo la sheegay inay xaaladda dabcan markan uga sii darayaan waayahay daawade haddaba adigu soo aragtid bal qaybta commentiga inoogu reeb Jabuuti xilligan xaq ma u leedahay xeerna ma u leedahay inay taageerto beesha Ciise waxaan ognahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay nin Ciise ah haddana Jabuuti inay arrinta dhexdhexaad ka noqoto soo lama rabin bal aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb sidaas si lamid deegaanka Habaas waxaa jiray in ay damcaan ciidanka Samaroon shaleegelinka dambe inay deegaanka tagaan laakiin waxaa ku dhacday dharbaaxa aysan filayn oo dib ayay u soo laabteen khubaro arrimaha la socota waxay leeyihiin waa fashil iyo fadeexad weyn oo dul hoganaysa beesha la yiraahdo Ciisaha taasi oo ku aadan in ay wali ka baxayaan ballamihii hore loo galay oo ku saabsanaa in aysan dhinacyadu sameyn wax dhaqdhaqaaq ah ilaa inta xal laga gaarayo qodobadii hore la iskugu hayay oo ku saabsanaa xaaladaha taagan si walbaba ha ahaatee haddii xaaladdu dabcan hadda ay sidan ku sii socoto oo aan wax degdeg ah laga qaban xaajooyinka hadda taagan sheekadu waxay noqon doontaa bareekaley sheekadu waxay tagi doontaa meel aan waxba laga qaban karin xaaladuna dabcan allow sahal ayay gaari doontaa haddaan si degdeg ah xal looga gaarin qodobada la isku hayo oo aan si degdeg ah miiska wadahadalka loo soo saarin xaaladahanna aan si qabow oo dee walaatinimo ah loogu dhammayn dad badan waxay aaminsan yihiin in xiisaddu ay noqon doonto mid aan waxba laga qaban karin oo dhinacyadu dabcan ay toos isku fara saari doonaan sheekaduna ay noqon doonto arrin mindi ku taag ah taas oo dad badan ay aaminsan yihiin inaysan cidnadan ugu jirin marka laga hadlayo qodobadii hore loogu heshiiyey oo ku saabsanaa in xiisada la dejiyo dabcan Samaroonka iyo sidoo kale Ciisuhu waxa ugu weyn hadda isku hayaan waa xeer buuga Ciise
anigu maanta wallaahi maanan aaminin cidna kama yeeleen xeerka dhaqankaaga iyo dadkaaga waxay hore u lahaayeen ee dhaqana ma soo bandhigi doontid laakiin samaroonku maadaama ay wax tirsanayaan oo ay leeyihiin xeerka buugga ciise waxaa ku jira waxyaabo badan oo gaf ku ah dhulka samaroonka xataa yacni dhul ay samaroonku leeyihiin bay ciisuhu sheeganayaan sidaasaa buugga ku qoran maadaama ay leeyihiin anigu waxaan qabay in ciro uu gogol u dhigo beesha samaroon iyo beesha ciise oo meel dhexe laiskugu yimaado kadibna laga wada hadlo wixii caqabada ay jira laakiin haddii arrintu jabuuti ay faragelinayso oo jabuuti ay leedahay waxaan hubeynaynaa beeshayada dabcan dee samaroonkuna somalilan huba ka helaan arrintuna faraha ka baxdo wax kale ma lahan arrintu waa sidaasi tegi haddii aan deg deg xal looga gaarin qodobada laysku hayo xaajadu farahay ka bixi doontaa waxaana arki doontaan iyadoo sheekadu ay tagtay meel aan waxba laga qaban karin laakiin hadda bahasha intay qabowdahay hadda shalay dagaalkii ka dhacay habaas xiisadda ka taagan xariirad iyo bolol dad badan waxay aaminsan yihiin haddii aan xal degdega loo helin sheekadu inay faraha ka bixi doonto oo la arki doono ayaa la leeyahay iyada oo laisku durmaantumanayo oo sheekadu ay tagtay meel aan waxba laga qaban karin yacni xaaladdu ay dagaal tagtay oo jawigu uu nooc kala tegey laakiin hadda xiisaddu intay bilow tahay intaysan ku fidin deegaano hor leh waa in xal degdega loo hela ayaa dad badan aaminsan yihiin kuwaasoo xilligan jawaabo kulul ka bixinaya ficilada cabdiraxmaan ciro oo la leeyahay aad buu uga gaabiyey marka laga hadlayo xiisadaha halkaasi ka taagan waxayna ahayd ayaa la leeyahay in si degdega xaajadan oo kale uu ciro u soo farageliyo islamarkaana wadahadal iyo wadaxaajood loogu dhammeeyo waa yahay waynu arki doonaa saaxiibyaal xaaladdu sida ay ku dambayso iyo wararka ku saabsan ciisaha iyo samaroonka xiisadooda ilaa iyo jabuuti oo la leeyahay arrinka way soo faragelisay saaxiibyaal waxaad noqon doontaan dadka ugu horeeya ee la socda warbixinadeenna markana qodobadeenna kale xiisad culusoo u dhexaysa ciidanka puntland gaar ahaana kuwa b m b f iyo ciidamo taabacsan garaad cabdulaahi garaad saleebaan ayaa laga soo warinayaa magaalada buuhoodle oo gobolka cayn ka tirsan ama gobolka togdheer hadba sidaa u taqaanid xiisaddu waxaa la leeyahay waxay salka ku haysaa markii ciidanka beesha maxamuud garaad ay diideen in ay la falgalaan oo ay la macaamilaan ciidamada b m b f yacni waxaa laysku hayo waa magaalada buuhoodle buuhoodlana dabcan sidaan ognahay waxaa dega beesha maxamuud garaad laakiin qodobka ugu weyn ee hadda laysku hayo oo xaajada dab kale ku sii shiday oo ay dee sheekadu tegayso meel aan waxba laga qaban karin ayaa ah in beesha maxamuud garaad ay xilligan qaadayso tallaabooyin ficilo ah oo xaaladda dab kale ku sii shidaya taasi ay dad badan aaminsan yihiin haddii aan si deg dega xal loo helin inay xaajadu tegayso meel aan waxba laga qaban karin saraakiil sarsaro oo ka tirsan beesha maxamuud garaad qaarkood oo aan goordhow la hadlay si aan wax uga weydiiyo qodobada laysku hayo ayaa waxay ii sheegeen in beesha maxamuud garaad ay diiday wax wada hadal ah oo ku saabsan xiisadaha taagan tusaale beesha maxamuud garaad waxay sheegtay in buuhoodle aysan ka telin ciidanka puntland oo si ixtiraam leh ay ku joogaan waxaa la sheegay in arrinkaasi ay si aada uga caroodeen beesha ciidanka b m b f taas oo la sheegay in ay kaliftay in dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah laga dareemo meelo fara badan oo ka mid a magaalada buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada dad badan oo arrimaha la socdana waxay leeyihiin xaajadan haddii aan si deg dega wax looga qaban dad badan waxay aaminsan yihiin inay xaaladdu tegi doonto meel aan waxba laga qaban karin yacni inay sheekadu tegi doonto allow sahal beesha maxamuud garaad iyo ciidamada b m b f si gaara isku hayaan garaad cabdulaahi garaad saleebaan dhowaan waa uu hadlay wuxuu sheegay in ay tallaabo cad ka qaadi doonaan cid walba oo lagu helo iyada oo puntland basaasu ah sidaas si lamida garaad cabdulaahi garaad saleebaan wuxuu sheegay in hadda wax badan uu xeerinayo oo ay tahay in wada dhalashada iyo walaaltinimada aan laga tegin oo la ixtiraamo maamulka waqooyi bari wuxuu sheegay in isagu beel ahaan hadda uusan u doodin magaalada buuhoodle laakiin maadaama uu yahay oday dhaqameed ka tirsan maamulka waqooyi bari lagu ixtiraamo wada dhalashada iyo walaaltinimada haddii taa la diidana wuxuu sheegay garaad cabdulaahi garaad saleebaan inay tallaabo qaadi doonaan puntland tan iyo markii dhidabada loo taagay oo dadka warsangeliga iyo dhulbahanto wax isku darsadeen dabcan puntland wadna kurkur ayay arrinkan ku noqotay tiro dhowr jeera waxaa jirtay in ay jireen
isku dhacyo ciidamada Puntland iyo sidoo kale kuwa waqooyi bari ah aaga shaxda hadda ka hor oo Nugaal iyo Sool halka ay iska galaan ah waa la isku qabtay waxaa sidaas la mid ah jira afkaaro iyo macluumaad tilmaamaya in beesha Maxamuud Garaad ay tahay beesha kaliya ee ciidanka Puntland gacanta qaban karta ama ku mashquulin karta magaalada Buuhoodle si ciidanka Puntland looga mashquuliyo inay ceergaabo difaacaan oo Somaliland ay ku difaacaan hadda waqooyi bari waxa la leeyahay inta ay xasaradaha ciisaha iyo samaroon ku jiraan waa inay bal arbushaad ka bilaabaan aaga magaalada ceergaabo oo ay sidaas la mid ah Buuhoodle qabsadaan laakiin Garaad Cabdullaahi Garaad Salebaan iyo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa la soo warinaya inay sheegeen in ay wali wax badan xeerinayaan oo ay doonayaan in wada hadal wada dhalasho walaaltinimo iyo is-ixtiraam lagu soo gabagabeeyo xiisadaha taagan oo waliba si qurux badan oo walaalnimo ana geed hoostii la iskugu soo yimaado iyadoo oo aan la iska indhatireen xaqiiqooyinka jira beesha Maxamuud Garaad iyo beesha la yiraahdo Jaamac Siyaad oo ay kala hogaamiyaan Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo Garaad Cabdullaahi Garaad Salebaan dabcan waa labada nin oo aan dhihi karo Cabdiqaadir Firdhiye way u hagar baxeen way garab taagan yihiin oo hiil iyo hooba way la garab taagan yihiin isla markaana aan arki karna dabcan inay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo iyo abaabullo weyn oo ay ku difaacayaan dhismaha maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii dari karto haddii aan si degdeg ah xal dabcan xilligan looga gaarin isla markaana aan loo soo gabagabeyn waxyaabaha la isku hayo wayaha guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysay ku soo biir daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba dabcan halkan aan ku daabacno aragtidaada waxa qaybta comment kaga dhibataa sida loo xalin karo khilaafaadka iyo colaadaha u dhaxeeya Ciise iyo Samaroon haddaad nala dhamaysato sharaf iyo karaamo muuqaalkan adoon lay gareen ha ka tagin aragtidaada qaybta comment-ga inoogu reeb xiisadaha ku saabsan Ciise iyo Samaroon dabcan si gaara ayaynu u falanqayn doonaa oo aan diiradda ugu saari doonaa macluumaadyada ku saabsan arrimahaasi ee la xiriira qadiyadaha la isku hayo xeerka buugga Ciise oo dabcan murankiisu hadda uu gaaray halkii ugu sareeyay iyo macluumaadyada ku saabsan ee ku jira xeerka buugga Ciise ayaan dabcan falanqayno guud ku samayn doonaa haddii Allah uu dalo raali ka noqdo aragtidaada qaybta comment-ga kaga dhiibo sida uu aragtid xiisadaas sida loo xalin karo soo dhawaada saaxiibayaal